haddii aynu maalin kasta nolosheenna u fiirsanno waxay noo soo baxaya dhowr waxyaabood oo ah waxyaabaha ugu waaweyn ee aynu maalin kasta qabanno. haddii aynu intaa u fiirsanno oo aynu kala saarno waxyaabaha qaldanna aynu meesha ka saarno, waxyaabaha wanaagsanna aynu qaadanno, isla markaana aynu sii xoojinno, waxaa dhici karta isbeddelka weyn ee aynu nolosheenna rabnaa inuu halkaa ka bilaabmo. laakiin badankeennu uma fiirsanno dabiicadaheenna iyo waxyaabaha aynu sida maalinlaha u qabanno. haddaba si ay taasi inoogu suuro gasho waa inaynu u fiirsannaa waxyaabaha aynu maalin kasta qabanno. ma wax wanaagsanbaa? ma wax xunbaa? inteed horumar ku gaadhaysaa waxaanaad samaynaysid? noloshaada dambe intee leeg ayay ka qayb qaadanaysaa wanaaggeeda? dhammaan su'aalahaas markaad jawaabtooda hesho isla markaana jawaabta saxda ay kuu soo baxdo, waxaa hubaal ah inaad waddadii guusha iyo horumarka cagta saartay. haddaba muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa 6 arrimood oo noloshaada horumarkeeda kaa kaalmayn doona. midda koowaad waxay tahay bilowga shay kasta inaanad quusan. inta badan quusta waxaa sababa kalsooni la'aanta iyo cabsida faraha badan ee qofku dareemayo, deegaanka iyo meesha uu wax ku bilaabay oo uu hoosudhac ka dareemayo. laakiin si kastay ahaataba, qof kastoo nolosha wax bilaabaa intan wuu kula qabaa nolosha dabaqaduu doonaba ha kaga jiree. waxaa lagu kala duwan yahay ee ay dadku ku kala tegeen. qofna wuu bilaabaa oo iskuday iyo ficil ayuu la yimaadaa, qofna intaanu bilaabin ayuu sii cabsadaa. hadduu wax bilaabana waxaa dhacda inuu si degdeg ah u quusto oo aanu yeelanin samirkii iyo adkaysigii uu ku sii wadi lahaa. haddiise shay kasta oo aad bilaabayso naf ahaantaada aad aamintid in shaygani kuu hagaagayo isla markaana rajo fiican aad qabtid, hubaal shayga guul ayaad ka gaadhaysaa. haddaba xaalad kasta oo aad nolosha ku jirtid ha isdhiibin, hana quusanin. midda labaad waxay tahay jiliica naftaada ka jar. markay naftu ku jilicsanayso ee ay kugu sasabayso hadda ha samayna berri samee, maanta ha qabanina maalin kale ka dhigo ee ay naftu doonayso inaanad hadda qabanin, waa middaas midda aan ku leeyahay naftaada ka jar. ha bari naftaada jiliica iyo dibudhigga howlaha iyo ku dhaqaaqidda qorshayaasha aad damacsan tahay inaad bilowdo. hana aqbalin waxyaabaha yaryar ee niyaddaada ku soo dhacaya isla markaana aanay faa'iida kuugu jirin ee ay naftu doonayso inay howlahaaga kaaga joojiso. haddii aad sidaas samayso, hubaal waxyaabo badan waad ku guulaysanaysaa noloshaada. midda saddexaad waxay tahay nadiifi gudahaaga oo naftaada ka saar waxyaabaha cidhiidhiga ku haya sida cuqdadda, cadhada iyo rajaynta inay wax kuu qabtaan dadka kale sida qaraabadaada iyo waalidkaaga. dadka qaar ayaa is yidhaahda, waalidkaa miyay wax kuu qabtaan? may ganacsi kuu furaan? may ku shaqo geeyaan? sidaana cuqdad iyo cadho dadka ugu qaada. balse taa beddelkeeda adigu dhaqaaq samee, adigu isku tasho oo qof wax qabsanaya noqo, markaasay dadkaaguna wax kula qaban doonaan. hadday kula qaban waayaanna ma aha inaad ugu cadhooto, waayo wanaaggan iyo dhaqaalahan aad arkayso rafaad dheer ayay u soo mareen, adigana dadaalkaa iyo halgankaa ayaa lagaa rabaa. haddaba waxa aad qabanaysid iyo gudahaagu ha iswaafaqaan. ka ilaali naftaada iyo sida aad yasayso iyo hoosaynta aad dareemaysid. hadafkaaguna ha noqdo mid aad aaminsan tahay inaad guul ka gaadhaysid, mid aad ku qanacsan tahay inaad u qalantid heliddiisa. haddii aad sidaas samayso, waddo kasta oo aad u maraysaana way kuu sahlanaan doontaa. midda afraad waxay tahay wax wanaagsan ilaahay ka malayso. ilaahay ayaa wax walba gacanta ku haya, sidaa darteed malahaaga wanaaji. maxaa kuu diidaya inaad ilaahay malo wanaagsan ka qabtid? guusha aad doonaysid malo wanaagsan ilaahay ka qab. ganacsiga aad bilaabaysid malo wanaagsan ilaahay ka qab. wax kasta oo aad bilaabaysid garan maysid wuxuu noqon doono mustaqbalkaaga ee malo wanaagsan ilaahay ka qab. taasaad guul ku gaadhaysaa, ilaahayna wax wanaagsan kugu siinayaa. dadaalkaaga iyo kartidaadana ku bixi waxa aad rabto nolosha inaad guul ka gaadho. hawl kasta oo aad gudagalaysana aamin inaad ku guulaysanaysid. malaha wanaagsan iyo niyadda xoogga badan ayay dadku ku kala duwanaadeen isla markaana guul ku gaadheen. qodobka shanaad waxa uu yahay naftaada dhiiri geli
ka ilaali hadallada xunxun ee waxqabadka naftaada hoos u dhigaya, sida inaad tidhaahdo wax walba waan sameeyey oo waxba iima hagaagaan, waa nasiib xumahay, dadka kale ayaa iga fiican, iyo hadallada la midka ah. Dhammaan kelmadahan iyo kuwa la midka ahi waxay kugu keenayaan niyad jab, mooraal xumo, guuldarro, horsocod la'aan, iyo inaad quusato. balse taa beddelkeeda waxaad isticmaashaa hadallada wanaagsan, sida inaad tidhaahdo waan guulaysanayaa, hadafkayga waan gaadhayaa, iminka waxaan xaqiijiyey shaygaa iyo shaygaa. waxa kale oo aad naftaada u sheegtaa in guusha dadka kale muddada dheer ku qaadatay aad adigu muddo kooban ku gaadhi doontid. waxaad naftaada u sheegtaa in haddii maanta saaxiibkaa guulaystay, qofka berri guulaysanaya aad adiga tahay. marnaba naftaada hoos ha u dhigin. hadday dadka kale hoos kuu dhigaan oo ay ku liidaanna, dhag ha u dhigin, hana maqlin hadalkooda. iyaga ayaa ku ammaani doona berri markaad guusha gaadho, oo ku odhan doona waxaad tahay nin go'aan leh, waxaad tahay nin karti leh. haddii aad maalinkiina maqli lahayd maanta guusha iyo horumarka aad gaadhay maad gaadheen. qodobka 6 wuxuu yahay horu soco. qodobkani waa qodob aad u muhiim ah. darajooyinka iyo dabaqadaha noloshu leedahay, dadka qaar baa markay midka ugu horreeya gaadhaan halkaa iska fadhiista oo halkaasay ku qancaan. waxaana dhacda wixii qofku sannado badan ka soo shaqaynayay sannad gudihii inay ku baaba'aan, waayo noloshu waa sida jaranjarta oo kale. haddii aanad kor u sii fuulin, waxay noqonaysaa inaad hoos u soo degto oo dhaqaalahaagii hoos u dhaco, iyo in dadkii kaa dambeeyey ay ku dhaafaan, isla markaana suuqii iyo tartankii nolosha ay kaa saaraan. taasina waxay keenaysaa inaad mar kale noloshii hoos ka soo bilowdo. haddaba si aanay arrintaasi kuugu iman ama ayna kuugu dhicin, waa inaad jaranjarta sii kortaa, oo markaad shay ku guulaysataba aad shayga ku xiga bilowdaa, oo aad sii ballaadhisaa guushii iyo horumarkii aad gaadhay. haddii kale waa inaad bilowdaa qorshahaaga xiga. waana sida uu qofku meel ku gaadhi karo. tusaale ahaan, haddii aad ganacsi bilowday, isla markaana uu si fiican kuugu shaqeeyo, waa inaad ka faa'iidaysataa fursadda aad haysato. tallaabada koowaad waa sidii aad u sii xoojin lahayd ganacsigaaga, una sii haysan lahayd macaamiishaada, baahidoodana aad u buuxin lahayd. tallaabada labaadna waa sidii aad qorshe labaad u bilaabi lahayd, waayo waxaa dhici karta in suuqu hoos u dhaco ama in laga ag furo meherado kale oo kula mid ah. taasina ay keento in macaamiishii lagula yeesho, haddii lagaa adeeg fiicnaadana ay macaamiishii kaa wareegaan. arrimahaas iyo kuwo kale oo la mid ah ayaa waxay kugu qasbayaan inaad mar kasta hore u socotid oo aad sii waddo qorshayaasha noloshaada. haddaba waa inaad ahaataa qof horu socod leh oo mar walba qorshayaashiisa iyo guulihiisa horumariya. fadlan aragtidaada nagula wadaag qaybta hoose ee kommentiga, kana mid noqo asxaabta ku xidhan Maamuusa Media ee ka faa'iidaysta xogaha aadka u muhiimka ah ee aan soo geliyo barteenna Maamuusa Media.